كنت عن دمان داوديال وبرامج كني مانتا يمان الله جبا برامج كني مانتا waxaan ku soo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay qaar kamid ah ciidankii tababarka u jiray dalka Eritrea ciidanka booliska iyo kuwa shacabka oo gacanta ku soo dhigay rag ka tirsan al-shabaab dowladda Talyaaniga oo amar culus dul saartay tahriibayaasha Mediterranean qodobadaasi ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena maanta Yemen Allah Juba inta aanu barnaamijku guda galin fadlan sii faafi barnaamijkeena adigoo isla markaana ku share garanaya asxaabtada baraha bulshada haddaad barnaamijkeena ku cusub tahayna fadlan nagu soo biir adigoo isla markaana subscribe dhahaya mahadsanidin aanu ku bilownay waxa shalay magaalada Muqdisho laga soo dejiyay qaybtii ugu horeysay ee ciidamada dowladda tababarka ugu dirtay dalka Eritrea waxaana ciidanka garoonka diyaaradaha aadan cad ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Muqdisho laga soo dejiyay qaar ka mid ah ciidanka tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea waxa uu sheegay wasiirka in ciidanka kale ee ku maqan dalka Eritrea dalka dib loogu soo celinayo maalmaha soo socda waxa uu cadeeyay in ciidankani dalka dib loogu soo celiyay inay ka qayb qaataan howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada al-shabaab ee dalka ka socda wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay sii wadi doonto howlgallada ka dhanka ah kooxda argagixisada ee al-shabaab waxa uu xusay in ciidamada dalka lagu soo celiyay dhabarjab weyn ay ku tahay kooxda argagixisada ee al-shabaab iyo kooxaha nabadda ka soo horjeeda ciidamadan tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea ee magaalada Muqdisho laga soo dejiyay iyo kuwa maalmaha soo socda imaanaya ayaa ku soo aaday xilli dalka qaybo ka mid ah ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah kooxda argagixisada ee al-shabaab dhanka kale ciidamada ammaanka oo kaashanaya shacabka ayaa gacanta ku soo dhigay laba dhalinyaro oo la sheegay inay ka tirsan yihiin kooxda argagixisada al-shabaab waxaana laga kala qabtay howlgallo laga sameeyay degmooyinka Karaan iyo Daynile ninka laga qabtay degmada Karaan ayaa waxa laga soo qabtay mooto bajaaj uu doonayay inuu ku baxsado waxaana howlgalka lagu qabanayay lagu dilay nin kale oo shabaab oo ay wada socdeen ninka labaad ee laga qabtay degmada Daynile ayaa isna la sheegay in gacanta lagu soo dhigay isagoo qorsheynayay weerar uu doonayay inuu ku dhibaateeyo shacabka reer Muqdisho afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Saadaq Aadan Cali ayaa milkiilayaasha bajaajta ugu baaqay inay sifo sharci ah ku wareejiyaan mootooyinkooda marka ay shakhsiyaad kale ka iibinayaan bacdama bajaajtan ugu dambeysay ee lagu soo qabtay howlgalka Karaan uu weli ku diiwaan gashan yahay milkiilihii hore bajaajtaas oo markii gacanta lagu soo dhigay baaris iyo dabagal dheer lagu sameeyay kadib la ogaaday inaysan lahayn milkiilaha markaa gacanta ku hayay oo isticmaalayay iyo milkiilaha ku diiwaan gashan sidaa darteed wargelintan ayaa ku socotay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan milkiilayaasha mootooyinka bajaajta lagu ogeysiiyay in ay si aad uga taxadaraan milkiilayaasha kala gata mootooyinka bajaajta inay ku wareejiyaan nootay sifo sharci ah ayuu yiri afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ugu dambeyntii dood xooggan ayaa ka taagan doomaha ama maraakiibta gaarka ee badda Mediterranean ka soo badbaadiya tahriibayaasha kuwaas oo ku wajahan Yurub khilaafka xoogiisa ayaa salka ku haya cidda qaabilaysa qaxootiga iyo Talyaaniga oo markii hore shuruud la'aan aqbali jiray qaxootigaasi dowladda Talyaaniga ayaa hadda hirgelisay sharci ku qasbaya maraakiibta ama doomaha gaarka inaysan si dhaqsi ah ugu soo xiran xeebaha Talyaaniga sharcigan cusub ayaa qeexaya in maraakiibta joojiyaan badbaadinta tahriibayaasha badda Mediterranean wasiirka arrimaha dibadda dalka Talyaaniga Matteo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay qorshaha cusub ee dowladda kaga hortagaysa muhaajiriinta soo gaaraya dalkaasi bilihii ugu dambeeyay dhowr markab ayaa laga celiyay dalka Talyaaniga ayadoo dowladda Talyaaniga oo diiday muhaajiriinta gudaha u galaan dalkaasi intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena maanta Yemen Allah Juba magacaygu waa Ismaaciil Kulmiye aniga iyo bahda wargeyska Yemen Allah Juba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh nabaday